دكتوريسا فوزية أبي كرنور وزيرة عافمادك حكومة فدرالك Soomaaliya ayaa maanta waxay qaabishay wafdi ka socday hay'adda WFP iyagoo kormeer ku tagay xarunta isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Wafdiga iyo wasiiradda ayaa waxay si gaar ah u kormeereen xarunta lagu baxnaaniyo dadka uu soo rito cudurkaas COVID-19 taas oo dhismo ka socdo. Sidoo kale waxa ay wasiiradda iyo wafdiga ka socday hay'adda WFP waxay kormeereen dhismo loo samaynayo warshada oksijiinta taas oo yeelanayo isbitaalka Martini. Wasiiradda ayaa wafdiga ka socday hay'adda WHO waxay ka codsatay in isbitaalka ay ka taageeraan adeegyada caafimaad taas oo sheegtay in loogu shaqeeyo dadka danta yar ee Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ku bogaadisay shaqaalaha isbitaalka Martini ka howlgala shaqada adag ee u hayaan bulshada Soomaaliyeed iyadoo kula dardaarantay in shaqadooda ay u gutaan si hufan.